سلياب لها يا الله حري إلهان عمر موقالك قابك الله حري إلهان عمر وبوليسك أي سي ودان أيضا أي قيلين أيسو أي داون دونتان إلهان waxay ka tirsan tahay baarlamaanka Mareykanka waana Soomaali Mareykan haddaba sababta loo xiray ayadoo xasaanad leh ayaan idin soo gudbinayaa muuqaalo muujinayo iyo hadallo ilhaan ay jeedisay oo aad cajiib u ah si degan muuqaalka u daawo aragtidaada xariga ilhaan Umar sidaad u aragtidna qaybta hoose ee fariimaha nugula wadaag dhammaantiina muuqaalka leegta saara siina sheergareeya ربي سبحانه وتعالى دمانتين أمورها لنا إلهي هينو سهلو إلهان عمر وكتر سن برلمان كمريكان كا أيا قرب وين لغو حري مقالة واشنطن أكدب محكمة دا سرائي مريكان كا هورتي دا سيدا مقالة موجين أيان وكادي إلهان أيا خيرين يسحل لغا حريي سيدا ندين سو قد بين دونو وحانا إلهان أمر كان لغو حري بحيي قرصورة سراو كتسن محكمة سراء مريكان كا إلهان عمر وطوما قلت أفضل أيا لغايا باين إلهان أيسان فانسانين أو صوماليا جوغا أما ملك الدولة صوماليا أسيدة باديها صوماليا جوغا إلي موقالك داوان كران إلهان وصومالي ديغانا دا بنتلان أيكاسو جيدا وحينا نقاتي قبدي ugu horeysay oo Soomaali ah ama qofkii ugu horeeyay Soomaali ah oo ka mid noqda baarlamaanka Mareykanka si weyn ayaa lagu farxay ka mid noqoshadeeda baarlamaanka waxaana si weyn u soo dhaweeyay arintaasi dadka Soomaaliyeed inkastoo si weyn ay u taageerayeen ururada isku jinsiga ee isku galmoodo ama qaniisyada sida Soomaalida ay u taqaan wal ciyaadu billah ilhaan ayaa markii si weyn Soomaalida ay u taageertay taageero badan la siiyay waxa la arkay inay ka tagtay ninkii qabay ayadoona guursatay nin kaloo Mareykan Kristan ah kaas oo hadda saygeeda ah ilhaan Umar waxaase la sii arkayay ayadoo ku dhex jirta ururada isku jinsiga ah ee isguursada ama ragga guursada ama dumarka guursada ayadoo calaamadeeda wadata iyo waxyaabo kale hadda ilhaan markii ugu dambeysay waxa Mareykanka go'aan uu ku gaaray in haweenka aysan iska soo ridi karin ilmaha taas oo shariicada islaamka xataa aan qabin oo xaraan ay tahay gaal iyo islaam Mareykanka waxay isku raaceen go'aanka ah in ilmaha haweenka aysan soo ridi karin caloosha ku jira ilhaan ayaa dagaal xoogan gashay waxaana dagaalkeedu uu ku wajahnaa in ilmaha la soo tuuri karo ilmahana ay iska soo ridi karaan haweenka dad badan oo Soomaaliyeed ayaa si weyn kaga niyajabay go'aanka iyo mowqifka ilhaan Umar ay ka qaadatay go'aanka ay qaateen baarlamaankii Mareykanka oo dawlad kala ah waxa ilhaan Umar dhankeeda ay ku adkaysatay in ay taageersan tahay marnana aysan ka naqanaynin dagaal iyo juhdi culusna ay ku bixinayso in haweenka ay soo ridaan ilmaha haweeneedii doonaysa in caloosha ilmo markay u galaan xaaraan iyo xalaalba mid ay rabto ha naqato inay iska soo tuuraan waxaana dad badan ay la yaabeen arrintaasi go'aan ayay maxkamadda sare soo saaraysay maanta laakiin ilhaan ayaa afka furatay sida muuqaalada ay muujinayaan way qeelinaysaa waxay ilhaan Umar ay leedahay haweenka waa inay soo ridaan caruurta haweeneedii doonaysa in caruur ay soo rido waa banaanka inay keentay iyo eriyo kale ayay ku qeelinaysaa ilhaan Umar laakiin garsoorihii maxkamadda ayaa amray in la xiro ilhaan Umar markaas ilhaan waxaa garsooraha uu ku amray booliska inay xiraan saacan ayaa loo jeebeeyay ilhaan sheekadii baarlamaan iyo xildhibaan iyo waxaan ahay baarlamaan ma jirto meesha Afrika ma aha xildhibaanka garsooraha ayaa ka awood badan iyo qaadiga maxkamadda jooga waxaana loo jaray waran xarig ah waxaana idin soo gudbinayaa muuqaalada iyo sawirada muujinaya ilhaan oo saas u sii xiran oo sii socota waxaase ilhaan dad badan oo Soomaaliyeed ay kula talinayaan in dhaqankii wanaagsanaa ee lagu soo barbaariyay inay ku soo naqato ayna joojiso waxyaabaha aysan qabin dinta ay una sab sheeganayso masas ilhaan Umar ilhaan ayaa ku hooyanaysa waqtigan xabsiga waxaase dad badan ay leeyihiin ilhaaney soo noqo Soomaalida way ku jecel yihiin jacaylkii taageeradii iyo allabaradii ay ku sameeyeen ha ka dooranin wadada naarta ee aad haysid ka joog waxyaalaha qaar oo Biden iyo Obama iyo Trump ay diideen adiga
كجوج إلهان عمر هذا إلهان سوين أي سومالي أسود وين وطن إلهان إلى داوم وقال ذا